عينكي الرويليو عدو هايقون نغنيني ماروني hadda waxaan ku sugan horta goobta daalo waxaan soconaa qayb kamid ah oo ay ku aasan tahay hooyadeeni weyneed Raweelo waxaan doonaynaa inaan sii xusnaa anaga ragna ay sii shiidaan maxay ragana u dhagax tuuraan dumarkana ay u dhigayaan uwaxa maslaxadka wanaga sii Raweelo waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed dumarka tustay dadnimadooda xoogooda waxyaabaha qaban karaan xiniyahooda laakiin rag waa ku xiyeen intaas baa ku xiyeen halkaan u jeedaan waa qabrigii Raweelo inta badan ali kulli yaraanteeda maqli jiray laakiin dadka taariikhda lagu hayo Raweelo waxay ahayd qof inta badan ragga dhibaato weyn badan u geysatay oo waxa maqlay xitaa in xaniya ay ka siibi jirtay ragga every ka dhigtay dumarkana ragga ay ku diri jirtay wali waxa la ii sheegay dumarka inay ku waanin jirtay ama ay u sheegi jirtay ku wacdi gelin jirtay in ay tiraahdo markaasi dumara waxa tiraahdaan waxa doonaysaana diida waxa diidaysaana yeela ilaa hadda darankaasna dumarka qaar way ku dhaqmaan oo sababta keentay in dhayax markaasi waliba dhayax labaad ku tuurayo maxamed saciid dhayax labaad ii keenay dhayax labaad maxaa ka dilaysaa ya warxaniya meeqan xaniya ya rag meemi aleeda wixii rag ah xaniyuhu ya muno halkan ubax baa dhigtay adigu halka Suudaan dhagax kaga tuuray inta badan xataa barna waa dhagax dhigtay ubax dhigtay halkan maxay tahay sababtu waxa u dhigtay Raweelo waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed anu kale hooyada iyo hooyinka aan bartilmaameedsado oo aadka u jeclaayay waxaan dhagax saaran ma jeedaa ragga nacabka u qabaan oo saaran waxa ubax saarana waxa dhagax saaran ragga nacabka u qabaan oo saaran waxa qor saaran ubax duugoobana dumar baa saaray marka iyada nacaybka ragga la qabtaa way aad rood mool ku lama qabo laakiin waxay ahayd hal door baynu ahayd marka ragga wax wanaagsan ugu waan sabaxeed qof tiraada ragga la barbarbaatihiin ragga in xiniyaha laga saaro oo mataqaanaa koromo laga wada dhigo arinta ma taageersantiin idin kala ragga hadda anaga xiniyi naga saaran anaga waaga xiniyi noo sameysay xiniyi naga saaran anaga horta qofta inay qof dumarka mataqaanaa ragga ay mataqaanaa dhawaatay waxa ku cadeynaya wax dhagax saaran hadii qof wanaagsan tahay waxaan wax ma saarnaan lahayn hadii waxaan waa dhagax kaargooyin markii jecelihiin waxa ubax saaran oo duugubada ku muujinaysa ya marka waa isku haystaa mar walba waxa weeye hadda waxaan doonayaa inaan ka sameeyno meel qasbiyo soo boqol laakiin dumarka hadii hadda ragga ay ku dhigtaan in xaniya ka sii jirtay dumarka marka waagaas ay u maqnaa dumarka waagaas waxa u maqnaa raglaan bay xaniya marka laga raglaan bay hayso waa ya raglaan ma hayn iyadana odaygeeda xataa xiniyaha kama saaran bal noo sheekay odaygeeda xiriirta odaygu ugu dambeeyay odayaasha ka haray markii maqlay odaygaasi wuxuu dhalinyaradii baa la xatay waqtigaas jirtay markii tiro odayaasha laaya bay reebeen iyada isaga reebeen si talooyinka iyo su'aalaha xidhayaasha ku xaddoonto uga jawaaba meel bay ku qasbeen markii dambe Raweelo markii qof ciinkan qof qurux badan bay ahayd qof gaaban bay qof dheer bay qof niyo waxa maqlay inay dheerad qabkeeda hadda inta ku dhawaateeda hadda Raweelo hadda habaarona cawaad la ku fuuyo dambi ali qoraa dib laga qorayo committee habaar intay rag bay xaniya ka siibto oo joogto ilma rag ay dumar ay meeyaan oo dhibaatayaan oo عينكي الرويليو عدو هايقون نغنيني ماروني على الجبع